بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu ku dhex jirnaa oo bilow noo ah oonu soo qaadanay casharkii koowaad tafsiirka quraanka kariimka ah oonu maartay bilowgiisa aanu joogno. waxaan ku bilaabanay fadaa'ilul qur'aanil kariim iyo tilaawadiisa iyo tacallumkiisa iyo tacliimtiisa inaanu qayb aynu ka soo qaadano. marka wali waxaynu ku dhex jirnaa fadaa'isha quraanka kariimka ahay aan uga hadlaynay aayadaha quraanka iyo axaadiisa rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaanu soo qaadanay. halkaana waxaan nooga bilaabanaya casharkeeni labaad oo tafsiirka quraanka kariimka ah oo aanu ku soo qaadanayno quraankii fadaa'ishiisi qaybo kamid aanu wali annagoo ku dhex jirna aynu soo qaadan doono. marka fadaa'isha quraanka waxa kamida oo qofka markaas quraanka bartaa waxyaabaha uu helaayo. waxaanu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyay saxaabiga jaliilka oo leeyahay Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma ayaa ani nabi sallallahu alayhi wasallam nabi wuxuu ka wariyay qaal inuu yiri nabigu yuqaalu li saahibil qur'aan waxa loo leeyahay qofka saaxibul qur'aanka quraanka ilaahay bartay ee ku amal falay waxa la leeyahay maalinta qiyaamo iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda aakhir aayatin taqra'uha. xadiiskaasoo Abu Daawud iyo Tirmidhi ay wariyeen. waa u dhahay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam maalinta qiyaamo markii la tago quraanku waxa uu kamid yahay waxyaabaha shafiicaya saaxibkiisa uu shafiicaya. marka maalinta qiyaamo markii la tago ayaa qofka saaxibul quraanka waxa loo leeyahay u dhahay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam aqri quraanka darajadaadana kor ayaa la leeyahay. quraanka waxa weeye waanu ku tagi doonaahe darajaadka oo jannada waxa la eg tahay xuruufta quraanka ay la eg tahay oo aanu sheegi doono. marka qofkii quraanka yaqaanaahu waxa uu darajadiisa u korayaa isagoo amalkiisa uu la buubaayo oo uu la haadaayo diyaarad midda uu dheeraysana uu ka orod badan yahay. intaas waxa uu ku soconayaa quraanka uu akhrinayo darajaadkii jannada ayuu ku soconayaa. marka waxa weeye waxa la leeyahay quraanka akhri kala dhigdhig ayaa la leeyahay kama kunta turatilu fi dunya adduunyada sidaad quraanka u kala dhigdhigi jirtay. quraanka marka la akhrinayo qiraa'adiisa in la toosiyo ayaa loo baahan yahay oo ilaahay waa tii uu dhahay warattilil qur'aana tartiila. quraanka kala dhigdhig ayaa la yiri qiraa'o la fahmi karo oo bayaana in lagu akhriyo ayaa la doonayaa. fa inna manzilataka darajadaadu ayaa la leeyahay oo dhahay rasuulka kaleey salaatu ilaahay xaqiisa looga leeyahay darajada aad leedahay 'inda aakhir aayatin taqra'uha waa aayadda ugu dambaysood akhrinayso ayaa darajadaada ku egtahay. qofkii marka waxa weeye quraanka dhamaantiis xaafidka ahay meeshaasna musxaf laga akhrimaayo quraanka in la xifdiyaa loo baahan yahay. waa la barakaraa quraanka oo ilaahay wuxuu dhahay walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min mudakkir u dhahay quraanka waanu sahalnow dhahay ilaahay oo waxaanu u sahalnay lil xifdi wa tadakkur in la xifdiyo lagu waana qaato. fahal min mudakkir ilaahay mid ku waan samaayo oo mid xifdinaayo oo ku waana qaada ma jira. waxa weeye waa la iska dalbaya in quraanka waxa weeye la xifdiyo oo lagu waana qaato ayaa la doonayaa. marka waxa la leeyahay darajadaada meesha ugu dambaysa waxay noqonaysaa aayadda aad akhrinayso. ninkii masalan hadda subax khamiisaad yaqiinay hadduu dhameeyo darajadiisa meeshaasay ku ekaynaysaa. ninkii laba subax yaqiinay halkaas ninkii quraanka dhamaantiis yaqiinay intaas ayuu buubayaa markaasuu jannadiisu isaasii ziyaadaysaa. quraanka marka barashadiisa fawaa'idda saraha badan ay iska leedahay in lana barta laguna amal fala ayaana la doonayaa. haddii aynu soo qaadanno xadiis Abu Hurayra laga wariyay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka wariyay saxaabigaas. nabigu waxa uu dhahay kaleey salaatu wasalaam yaji'ul qur'aanu yawma al-qiyaamah quraanku waa imaanaya maalinta qiyaamo. quraanku maalinta qiyaamo waa imaanaya yuu imaanaya qofkii saaxiibkiisa uu imaanaya. yaji'ul qur'aanu yawma al-qiyaamati ayuu dhahay quraanku maalinta qiyaamo waa imaanaya. فيقول مركز عليه
yaa rabbi xallihi rabbiyow u biladay oo bilad u geli qofkan bilad sharafa fa yulbasu waxaa loo libisaa u dhahay saaxibulqur'aanka taajulkaraamati karaamada taajkeeda taaj la yidhaahda taajulkaraama ayaa loo libisayaa suma yaquulu haddana wuxuu leeyahay yaa rabbi zidhu rabbiyow u siyaadi ayuu leeyahay fa yulbasu waxaa loo libisayaa haddana xullatulkaraamati isku joog oo qurux badan oo la yidhaahdo xullatulkaraama ayaa haddana loo libisayaa suma yaquulu wuxuu leeyahay yaa rabbi erli canhu rabbiyow ka raadli noqo ayuu leeyahay fa yardaa canhu ilaahay waa ka raadli noqonaya qur'aanka wixii markaasi uu yidhaahdo waxba laga soo celi maayo qur'aanku hadduu ku dacweeyo wax kale oo lagaa raadina ee lagaala hadlaaya ma jirto maxaa yeele nabigeenna wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam alqur'aanu xujatun laka ow calayka qur'aanku waxaa weeye xujo ayuu kuu noqonayaa waa in imtasalta awaamirahu waijtanabta nawaahiihi waxuu ku faraaya markaad fartoonto wuxuu kaa reebaana aad ka harto ayuu xujo kuu noqonayaa ow calayka ama xujow kuu noqonayaa waa goormee in lam tamtasil awaamirahu walam tajtanib nawaahiihi wuxuu kaa reeba haddaadan ka harin waxa uu ku faraana aadan fartoomin xujow kuu noqonayaa marka qur'aanka sidaas ayaa waxaa weeye amarkiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fulinayaa markaas fa yuqaalu lahu ayuu dhahay rasuulku waxaa loo leeyahay saaxibulqur'aanki iqra' wartaqi akhri qur'aanka kor derajadaada wa tusaadu bikulli aayatin xasana aayad kastane xasane ayaa loogu siyaadinayaa inta ugu yar 10 ay tahay xadiiskaas waxaa weriyey isagane tirmidiyaa weriyey sanad oo saxiixa ayuuna ku weriyey waxaa jira xadiis abu daa'uud isaguna uu weriyey oo ahay nabigu inuu dhahay calayhi salaatu wasalaam oo isla saxaabiga abu hurayra uu ka wariyey nabiga man qara'a alqur'aana wa camila bimaa fiihi ulbisa waalidaahu taajan yowma alqiyaamati low'uhu axsan min low'i shamsi fii buyuuti dunya low kaanat fiikum famaa dannukum biladii camila bihaada ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofkii qur'aanka akhriya wa camila bimaa fiihi xadiiskan hadda axaadiiso hore ayuu qaydayaa qur'aanka ha la akhriyee waxaa markaasi shardi ah in lagu camal falo qur'aankiyaa la akhrinayaa laguna camal fali maayo waxa weeye waxba faa'iidaa laga heli maayo waa qur'aanka markii la akhriyo in lagu camal falo hadda qur'aanka markaaseed uga camal falaysaa qur'aanka waxaad ku camal fali karaysaa markaad macnihiisa aad barato oo qur'aanku waxa uu ku faraayo iyo waxa uu kaa reebaayo aad ogaato ood cilmi aad ku yeelato ayaad qur'aanka markaas ku camal fali karaysaa marka nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam qofkii qur'aanka akhriya oo ku camal fala waxa ku sugan labadiisa waalid ayaa waxaa loo libisayaa taaj ayaa loo gelinayaa bal u fiirsa hadda qur'aankii waxaa weeye qofkii saaxiibulqur'aanka ay waa ka gudbaaya waxaa ilaahay oo ku karaamaynaa oo ku sharrifayaa owlaaddiisa markii waxaa weeye owlaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku karaamaynayaa inay waalidkooda ugu sabab noqdaan in waxaa weeye taaj oo markaasi jannada laga soo qaaday oo nuura loo geliyo qur'aankii marka qofkii yaqiin waa ka gudbay waalidkiisa ayuu u gudbaa u sii shafeecayaa ulbisa waalidaahi ou dhahay waalidadiisa ayaa loo libisayaa taajan taaj yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinteeda low'uhu axsan min low'i shamsi taajkaasoo waxaa weeye iftiinkiisu oo ka qurux badan yahay qoraxda iftiinkeeda kana maaragtay iftiin badan yahay fii buyuuti dunyaa oo guryihiinna adduunya ku taalla low kaanat fiikum ou dhahay haddii meeshaas qorraxu ay joogi lahayd oo qorraxda iyo taajka waalidiinta owlaaddooda qur'aanka ay ku camal faleen oy barteen loo gelinaayo iyo qorraxdan haddii laysoo garab dhigo waxaa iftiin badnaa lahay taajkaas markaasuuna waxau dhahay famaa dannukum biladii camila bihaada bal ka warramuu dhahay qofkii qur'aankaas ku camal falay oo bartana ka warrama qofkii waxaa weeye asagu aanan baranin waalidkii waxaa weeye owlaaddiisa ugu sabab noqday inay qur'aanka ilaahay bartaan oo waxa weeye ay ku camal falaan asaguna maalinta qiyaamo faa'iidadaas ayuu ka helayaa haddaba waxaa meeshaas laga qaadanayaa dadka muslimiintaah inay ku dadaalaan ayaa loo baahan yahay sida owlaaddooda ay qur'aanka u bari lahaayeen macnihiisa u bari lahaayeen diinta ay u bari lahaayeen maxaa yeelay ayaga ayaa maalinta qiyaamo ayaa ku faa'iidaaya laakiin waxaannu u badannahay inaan xagga adduunyada keliya tarbiyadeeda iyo sida qofku waxaa weeye adduunyo keliya uu ku hana lahay inaannu ku dadaalno oo xaggii diinta aanu ka tagno waxa weeye waa in la yska ilaaliya arrintaas waalidkii doonaaya
in maalinta qiyaama taaj loo geliyo waa inuu awlaadiisa diinta baraa, waa inuu ilaahay kitaabkiisa uu baraa, waa inuu ku dadaalaa, mas'uuliyadiisa waa inuu ka soo baxaa, si waxaa weeye awlaadduna ay u faa'iidaysato, isaguna uu u faa'iidaysto oo khayr uu helo. maxaa yeele sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankii qofkaana uu bartay oo ku camal falay waalidkiis ayuu ugu shafeecayaa, ummado fara badan ayuu ugu shafeecayaa, oo sidaas ayuu qur-aanku u khayr badan yahay. waxaannu soo qaadanaynaa oo kaleentood xadiis laga wariyey abi saciidin alkhudri saxaabiga jaliilka ahoo la yidhaahdo radiallahu canhu, oo nabiga calayhi salaatusalaam uu ka wariyey. rasuulkeennu wuxuu dhahay, yaquulullaahu tacaala, xadiisulqudsi weeye, allah wuxuu leeyahay, man shaqalahu alqur'aanu wa dikrii can mas'alatii acdaytuhu afdal mima ucdi saa'iliin. waxau dhahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu alla leeyahay, u dhahay nabigeennu calayhi salaatusalaam, qofkii qur'aanku ou shuqliyo ou mashquul ou ka dhigo, iyo aniga xuskayga uu xusaayo dikrigayga, su'aashayda uu ka mashquulsho, oo meesha aniga uu baryal, hadda baryada ilaahay waa la rabaa, laakiin qur'aanka falliyadiisaa la isku tusaaya. qur'aankaasuuba mashquul ku yahay iyo maaragtay ilaahay xuskiisa. wuxuu ka mashquulay inuu ilaahay wax weyddiisto. waxaan siinayaa haw dhahay alle, waxa dadka saa'iliintaa aan siiya wax ka fadli badan. haddaaba hadda ilaahay qur'aankiisa aad baranaysid, ood akhrinaysid, ood alla aad xusayso, ma allaa ku moogaanaya, kalaamkiisi baad haysaa. dadka baryootamaayo alla baryaaya, waa loo baahan yahay baryada waxa la siiya wax ka fadli badanaa lagu siinayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala qof qur'aankiisa baranaaya ama sabaraaya ilaahay ma halmaamaayo. wa fadlu kalaamillaahi tacaala, ilaahay kalaamkiisa fadligiisa, calaa saa'ililkalaami, hadallada intooda kale uu ka fadli badan yahay, ka fadlillaahi calaa khalqihi ou dhahay. alla subxaanahu wa tacaala waa ilaahay siduu khalqigiisa uga fadli badan yahay. agaadaba fiiri marka, ma ilaahay iyo khalqigiisa farqiga u dhexeeya ayaa cid fahmi kartaa ay jirtaa? ma jirta waayo. waa qur-aanka ilaahay markaasi cadamadiisa ayaa lagaa tusaya halkaas. marka cid walba waa inay qur-aanka sidaas u weyn oo u qiimaha badanne inay ku dadaashaa barashadiisa. waxaannu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas radiallahu canhumaa qaal, qaala rajulun yaa rasuula allah, ayulcamali axabbu ila allah. waxa uu dhahay saxaabiga jaliilka oo la yidhaha cabdullahi ibnu cabbaas xabru caalim alumma, waxa uu dhahay, nin ayaa nabiga waxuu ku dhahay, ilaahay rasuulkiisiiow, camal ilaahay xaggiisa kee loo jacayl badan yahay? yaa rasuulallaahi, ayulcamali axabbu ila allah, ilaahay subxaanahu wa tacaala camal la sameeya keebaa xaggiisa loo jacayl badan yahay, oo alla keebuu ugu jecel yahay acmaasha la sameeya weeye soomaaliga. qaala markaas waxuu dhahay, alxaalu lmurtaxil, camalka wuxuu alla u jecel yahay qofka markaasi degaaya oo raranaaya. see weeye marka? markaasay waxay yidhahay asxaabtu, wama alxaalu lmurtaxil, ama ninkii a waxau dhahay, yaa waaya midka oo degaaya oo raranaaya muxuu yahay? markaasuuna wuxuu dhahay, alladii yadribu min awali lqur'aani ilaa aakhirihi kullamaa xalla irtaxala. waxa weeye u dhahay, midka qur'aanka awalkiisa ka safraaya. safarku waxa weeye qur'aanka ayuu soo bilaabayaa, faatixatulkitaab uu ka soo bilaabayaa, sida uu u wada markaasi birabbinaas uu geynayaa. markii uu dhammeeyane haddana waa sii bilaabayaa. waannu ku tegi doonnaa aadaabta qur'aankaa waxay tahay, markii qur'aanka aad dhammayso oo soo akhrisay oo birabbinaas aad dhammayso min aljinnati wannaasi aad ku dhammaysid, waxaa la rabaa inaad faatixada soo akhriso, wax yaroo markaasi awaa'ilka suuratulbaqara aad akhriso, si waxa weeye qur'aanku mahjuur ousan u noqonin, ood markaasi xaalulmurtaxil aad noqoto, ood mar walba waxa weeye awalka haddii aad ka soo bilowdo aakhirka aad tagtana awalkii adugu laabato. sidaas ayaa marka waxay tahay si aad iyo aad maaragtay u wanaagsan oo qofka muslimkaa looga baahan yahay inuu mar walba safar ou ku dhex jiro, oo ku dhex safraayo, ilaahay qur'aankiisa uu ku dhex safraayo. marka waxa weeye qur'aanka sidaas ayaa markaas uu khayr badan yahay, oo waxa weeye axaadiisa ku soo aroortay ay u tiro badan tahay, ayadoo markaasi ay dhacayso intaas iyo in ka sii badan, oo markaasi waxa weeye qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala fadaa'ishiisa ka warramaysa aanu maaragtaya wax uga soo qaadan doonno. marka hadda waxa weeye qofku markuu wax baranayo, waxbarashadu waxa weeye wax sahlan maaha. qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay cinaayo uu siiyey ayaana wax bara kara. barashada ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisana wax sahla ma ahan, oo waa sida hadda aanu maaragtay axaadiis aanu ku soo sheegnay. laakiin waxaa la rabaa cilmiga fadiilo ayuu iska leeyahay, oo qur'aanka barashadiisa ay ugu horrayso. waxa weeye qofka markaasi waxa weeye
baranaayo iyo qofka markaasi baraayaba waxa weeye fadiilo fara badan iska leeyihiin culummo badan oo markaasi ahlulcilmiya oo caalimka la yidhaha abi sawr uu ka mid yahay waxa uu dhahay waxaa la rabaa dadka markay wax baranayaan shuruudo badan ayaa laga doonayaa shuruudo wax lagu barto qofka haddii aanan laga helin waxa uusan baranaynaa jirta waxa ay yidhaahdeen culummadaas idaa jamaca almutacallimu alcaqla waaladaba wa xusna alfahmi waalmucallimu alsabra waltawaaluca wa xusna alkhuluq faqad tamat innicamu calayhima waxay yidhaahdeen culammada ahlulcilmiga ah ninka mutacallimka oo wax baranaya rag iyo haween wuxuu yahay qofka mutacallimka wax baranaya markuu kulansado caqli iyo edeb iyo faham wanaagsan mucallimkuna uu kulansado sabar iyo tawaaluc iyo dabeecad wanaagsan nicmadu way ku taam noqotay oo waxa weeye mutacallimkuna wax buu baranayaa mucallimkuna dadka wax buu bari karayaa haddii waxa weeye markaas intaas la waayo waxaa imaahaysa nuqsaan baa dhacaysa waxaa la rabaa qofka mutacallimkaahu horta waxaa weeye caqli inuu leeyahay qofku haddii caqli uusan lahayn caqligu jawharti qaaliga ahaydoo wax lagu hagaayo waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana bixiya iyo adab waxaa loo baahan yahay qofka mutacallimkaahu adab inuu lahaado waxa weeye tacliimta mucallimkiisa qofka wax baraysa inuu ka adab qaato ayaa loo baahan yahay adab la'aantu waxay keentaa qofka waxa weeye way hoojisaaho tacliimta iyo siyaado inuu helo iyo khayr ayay ka baabi'inaysaa iyo markaasi xusna alfahmi faham wanaagsan fahmadu qofka hadday ka xun tahane waxa weeye wax barakari maayo maxaa yeele sheekheenna maaragtay imaamuna ashaafici tacliimta markuu ka warramaayey oo qof walba uu kula dardaarmaayey waa tii uu dhahay akhii lan tanaala alcilma ilaa bisittatin saumbiika can tafsiilihaa bibayaanin dakaa'un wa xirsun wasdibaarun wa bulqatun wa irshaadu ustaadin wa duulu zamaan dhahay akhii ayuu dhahay walaalkeeyow walaalkayga muslimka ahow cilmi ma gaaraysid oo wax baramaysid ilaa 6 amuurood in la hela mooyaane dakaa'un qof markaasi maskax leh oo maskax fiican inaad tahay waa caqligii wa xirsun waa inaad xariis aad tahay xariiska waxaa la yidhaha qof waxaa weeye dadaal badan oo wax walba inuu bartou rabaa cilmi kasta inuu bartou rabaa qur-aanka tafsiirka inuu bartou rabaa axaadiista inuu bartou rabaa inuu fiqhigii bartou rabaa aaladii inuu bartou rabaa xataa cilmulqiraa'a inuu reebo ma doonaya xariisnimadaa la yidhaha wa xirsun wasdibaarun sabar qofku waa inuu sabar leeyahay qofka haddaa wax baranayso waa inaa waxbarashada ku sabartaa qofkaan sabraynin waxbara ma karaayo oo wax yaroo dhibaataa iyo culays yar hadday soo fuulaanba waxa weeye amba caajislooba oo iska hurdaaya waqti wax la baranaaye waxa weeye wax baran maayo wa bulqatun haddana waxaa la rabaa wax xoogaa nolol ah oo wadnaha uu ku istaajiyo inuu heli karo qof baahi ay dilayso wax ma bara karo wa irshaadu ustaadin wa duulu zamaanu dhah haddana macallim oo ku hanuunsha oo ku haga oo maaragtay wax ku tusaaleeya inaad leedahay macallim la'aan wax la baran maayo dadku inuu ayagu maaragtay asagu iska yidhahdo anaa wax isbaraayo iska soo dhowaysta kutubo waxyaabo badan markaasi waxa weeye uusan aqoonin oo waxyaabo markaasi iska qaamidaad oo iska qarsoon uu dhex galo dhibaato weyn uu kala kulmaaya irshaadu ustaadin waa la rabaa waduulu zamaan haddee zamin dheer baa loo baahan yahay in wax la barto soomaalidu waxay yidhahdaan hebel waa shambiri ka shiiqay dhaan waxa weeye qof wax yar ina xoogaa bawsaday kabacdi haddana shiiq iska dhigaaya ee wax walba kharibaaya lama rabo waxaa loo baahan yahay tacliimta in la bisleeyo ayaa loo baahan yahay 6daas haddaan la helinow dhahay imaamuna ashaafici waxa weeye tacliin ma gaaraysa u dhahay mucallimka marka waxaa la doonaya isagana sabar baa la doonayaa maxaa yeele dadka markuu qofka mucallim yaho wax baraayo dhibaatooyin fara badan iyo markaasi waxa weeye tacliimta uu baraayey culays fara badan ayuu la kulmaayaa tawaaluc ayaa loo baahan yahay qof tawaalucaaya kibir iyo midna aysan ku jirin oo nin yar iyo nin weynba la tawaalucaaya ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaa xusnul khuluq dabeeco wanaagsan macallimka amase shiikha isku mid weeye waa inuu dabeecadiisu wanaagsan tahay dabeecada wanaagsan waa waxyaabaha jannada lagu galo waxa ugu badan sida nabigeenu dhahay calayhi salaatu wasalaam waxa qofku insaanku oo wax ku tarane waa xusnul khuluq dabeeco wanaagsan jaanib kasta waxa weeye adduun iyo aakhiraba dabeeco wanaagsan laga maarmaan weeye haddii waxa weeye qofku uusan dabeecad lahaynin cilmigiisu wax tari maayo nin maaragtay shaacir weyn ahayoo mashhuur ka ahaa jira waddankaas reer masar oo la yidhaha axmed shawqi ayaa wuxuu dhahay laa taxsabanna alcilma yanfacu waxdahu
maa lam yatawajah rabbuhu bikhalaaqin uu dhahay cilmiga keligiis inuu wax taraayo ha u malaynow dhahay haddaan qofka saaxibulcilmiga ah oo cilmiga yaqaana dabeecad uusan ku qurxin qofku hadduusan dabeecad lahayn cilmigiisuu siino yeelan maayo faa'iido yeelan maayo derajana ka gaari maayo waxna laga bara maayo maxaa yeele akhlaaqdii markay xumaato oo macallinka akhlaaqdiisu xun tahay waxa weeye tacliim dad bari ma karaayo marka haddii waxa weeye mutacallimkuna caqli iyo edeb iyo faham wanaagsan uu yeesho mucallimkuna sabar iyo tawaaluc iyo dabeeco wanaagsan uu yeelo nicmadii way ku taam noqotow dhah maxaa yeele macallimkii oo sidaasa iyo mutacallimkii oo sidaasa markay iswaafaqaan waxbarashadoodu waa hagaagaysaa caalimka weyn oo markaas taabiciga jaliilka xasanulbisri la yidhaahdo ayaa waxa uu dhahay sariiru qalamil caalimiyow dhahay tasbiixun waa u dhahay ninka caalimkaahu qalamka uu wax ku qoraaya shanqarta ka yeeraysa tasbiix oo kale waaye cilmiga barashadiisu waxa weeye tasbiix asoo akhraaya ka dhiganta oo subxaana allah wa bixamdihi dhahay wa kitaabatulcilmi wannadaru fiihi cibaadatun cilmiga oo la qoro oo la fiiriyana waa cibaadow dhah wa midaaduhu ka dami shahiidi waa u dhahay qadka lagu qoraayo cilmiga lagu qoraayo waxay la mid tahay shahiidka dhiiggiisaoo kale shahiidka maalinta qiyaamo dhiiggiisa ayaa u markhaati kacaya adigana markaad cilmiga saasu qoraysid oo qalim aad ku qoraysid waxa weeye damu shahiid oo kale waaye wa idaa qaama min qabrigiisa markuu ka soo istaago oo qubuuraha la yska soo bixiyane yanduru ilayhi ahluljamc dadka maxsharka ku soo kulmay ayaa isla fiirinaya waa la wada fiirinayaa waxa weeye waxyaabaha uu la soo baxay iyo derajada uu leeyahay ayaa lala yaaban yahay wa yuxsharu maca alambiyaa'i waxaa la soo kulminayaa ambiyada ayaa lala soo kulminayaa caalimka la yidhaahda isagana abulays oo hadda cilmu adabkana u badnaay waa u dhahay man jalasa cinda caalimin walam yaqdir calaa xifdi shayin min alcilmi naala sabca karaamaatin u dhahay waa u dhahay qofkii fadhiista nin caalima agtiisa asoo isdhahaya cilmi ka baro awoodina waayow dhahay oo awoodi waaye inuu wax ka barto maxaa yeele waxaa iska xun fahamkiisaaba iska xunba wuxuu gaarayaa 7 karaamou gaarayaa asagoo wax ka bartay iska daaya hadduu xataa wax ka bara waayo 7 karaamo ayuu gaarayaa fadlulmutacallimiin wuxuu helayaa dadka mutacallimiinta ah oo wax barta fadligay iska leeyihiin wa xabsuhu cani dunuubi weeye haddana wuxuu ka xabismaaya oo ka joogsanayaa dunuubta weeye marka wa nusuulu raxmati calayhi naxariis ayaa haddana ku soo degaysa maxaa yeele cilmiga meesha lagu akhrinaayo raxmad ilaahay baa ku soo degaysa wa nusuulu raxmati calayhi xaala khuruujihi min beytihi markii gurigiisa uu ka soo baxaayo oo meesha cilmiga uu soo aadaayane naxariisaa dushiisa ku socoto wa idaa nasalat araxmatu calaa ahli alxalqati waxa u dhahay dadka xalqadaas jooga cilmiga lagu akhraayo haddii naxariis ku soo degtane xasala lahu nasiibuhu qaybtiisa uu ka helayaa wa yugtabu lahu daacatun daaca ayaa loo qorayaa maadaama mustamican intuu wax dhegaysanaayo waxaa loo qorayaa daaca ayaa loo qorayaa wa idaa laaqa qalbuhu haddii qalbigiisa uu cariirtoomo licadami alfahmi faham la'aanta maxaa yeele markii wax laguu sheegaayo oo aad fahmi weysid qalbigaaga cariir baad ka dareemaysaa saara qamuhu wasiilatan ilaa raxmati illaahi tacaala murugtaas ku dhacday waxay noqonaysaa mid wasiilo u ah oo waxa weeye xariir u ah oo u xariirisa raxmadda ilaahay naxariista ilaahay raxmadda ilaahay ayuu ku gaarayaa murugtaas ka qabatay cadamu fahmi alcilmi weeye cilmiga uu fahmi waaye maxaa yeele xadiisulqudsi ayaa waxau dhahay allah subxaanahu wa tacaala ana cinda almunkasirati quluubuhum min ajlii anigu waxaan ahayow dhahay dadka quluubtooda ay jabta aniga daraaddayda waan kabayaa waan u gargaarayaa weeye maxaa yeele qofkaan cilmiga baranaya ilaahay daraaddiisa ayaa markaasaa waxa weeye qalbigiisu oo u shaqaynayaa haddii waxa weeye markaasi wax bara waayo ama wixii uu fahmi waayo qalbijabaa ku dhacaaya cilmigana dar alle ayuu u baranayay ilaahay baa qalbigiisa kabaaya una gargaaraaya waxa weeye hadda darsigii oo muqaddamada ahay oo fadaa'ilulqur'aan aynu uga hadlalnay iyo wax yaroo tacliimta aanu ka soo qaadannay ayaa intaas aanu hadda ku dhaafaynaa qaybtan oonu maaragtay ku soo gudbinnay oo nooga bilow ah tafsiirkii qur-aanka kariimka ahay macluumaad fara badan oo kalena ee casharada dambe noogu sii socon doonaan hase yeeshee hadda waxaa weeye intaas ayaanu hadda darsigaan ku ekaynaynaa duruusta dambene waxaanu ku soo qaadan doonnaa tacliimta iyo bacdi fadaa'il qur'aan ka mida ayaanu ku soo qaadan doonnaa iyo adab iyo waxyaabo badan aanu ku soo qaadanaynaa qabla intaanan gudagelin qur'aanka tafsiirkiisa
marka hadda halkaas ayuu casharkeennu noogu eg yahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh